nabadda wadayaal meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan iyo si kastoo noo daawanaysaan halkani waa jamaa bil jamaa oo isla asagii jamaa bil jamaa anigoo ah Cabdishukri Maxamed Jaamac Qasaal saaxiibkay jamaa baa yiraahdaa Cabdishukri wuxuu jecel yahay magaciisa oo magaciisa fule anigana waxa la Cabdinaasir Faarax Sheekh Ibrahim Shaqaali Geelle waa iga fogaatay laakiin waa iga fogaatay laakiin jamaa aan wax yar hormariyo magaca markii aad full ka dhigtid iyo marka half ka dhigtid horta marka full ka dhigtid du fiican haddana saxaafadda markii lagu barayo oo wariyanimada waa in full aad magac ka dhigtaa hadda tiraa waa jamaa waxaan ila hadlaya jamaa muxuu anaga YouTube keena social media marka la YouTube ka wala dhanka YouTube ka waxa dadka waxay ola baxaa magac gooni magacaaga runta aha iyo oo naanays oo YouTuberada dhan ku socdaan ay jiro marka anaga saas aan u naqana jamaa bin jamaa oo magaciisa social media laga aqaan aadiya Cabdinaasir Faarax Sheekh Ibrahim Shaqaali Geelle waa ka saxda waa ki saxda ki weynaa waa yahay barnaamijkan ay idin la soo horfariisanay daawadayaal oo la rabo inaan halkaan ka soo jeedino waa toddobaad leh barnaamijkani noo soconaa magaciisa waxa la yiraahdaa maxaad ku joogtaa social media maxaad ku joogtaa qof walba wuxuu ku joogo waa laba kala xanaaqaan koob badan oo birta hadhow tideelaysanaya yaan la arag lana soco waxaad ku joogtid sida adigu isku taqaanin maahana waa sida lagu yaqaan adigu waxa anigu sidaan isku aqaan ma ahi laakiin waa sida bulshadu ku taqaan annaga waxaan ku soo bandhigaynaa sida ay bulshadu ku taqaan annaga ku daawana sida aad tahay iyo muuqaalkaaga nooca uu yahay ayaan soo bandhigaynaa sax lama kala xanaaqaan lama kala xanaaqaan waa maanta iyay ku bilaaban doontaa bal iska fiiri magacyadaadu inay ku jiri doonaan ama qofka ugu horeeya lagu daafuri doono waa kuma horta hore aad baa u maasantiin soo dhawaada asxaabta waa lama kala xanaaqaan waa barnaamijkan waa falaqaynayna anaga waxay ku joogaan qof walbaba iyo macnaha uu YouTube ugu jiro ayaan rabnaa inaan maanta ka hadalno Cabdishukri qayb u qaadanaa inaan qayb aan qaadanaa Soomaa Cabdishukri waxaan ka soo qaaxan YouTube leeyahay waxaan ka bilaabaynaa Nairobi hadday TikTok ku jiraan iyo hadday ku jiraan ba meel kasta ay kaga jiraan media meel kasta ay kaga jiraan ka soo ka bilaabaynaa waxaan ka bilaabaynaa marka qurux ku dhigle aan ka bilowno qurux ku dhigle muxuu ku joogaa YouTube qurux ku dhigle wuxuu ku joogaa YouTube ka qosol afka saar horta la isaga hayo waa YouTube kaas qosol muxuu kale ku joogaa waxa kale ku joogaa isqaadqaad saal isku qaadqaaday asoo dhan saal isku qaadqaadayo labo waxa kale ku joogaa iska weynaysiinayo inta marka kula jirta social media oo asaguna qaabkiisa uu iskala weyn yahay oo heerkaasi qof gaarayba malaha oo ina jirinba duqsiga korkiisa taabta waa 5 sano oo xariga sax waan garanaa dhanka talentiga waa iska talenti waaga hore wuxuu nagu soo galay heesaha lagu dhago sax reactionka la bixiyo uu nagu soo gala ka bacdina uu sii ballaartay oo wuxuu sii fahmay sirta riwaayadu ay leedahay sax xaga ayuu asaguna markaasi u sii diga rogtay waa teamkaas kor u bax TikTok-na aad sii marka asaga isla TikTok dib u gala la marmarsay wixii wajiga la marmarsan jiray sax soo qabay dad waaweyn waa filterkii sax laakiin markii filterka uu ka soo baxo oo banaanka iskeeno kiiba ma aha waa ku kale yaa soo qabanaysaa kale muxuu kale ku jooga TikTok-ga oo adiga badisaa halka igu celi TikTok-ga muxuu ku joogaa ana isi Soma qaybtaada askale qurux ku dhigle horta hore qurux ku dhigle magaciisa saddexan magaciisa kale waa saan ku sheegay social media magac kale wata dadkii laakiin magaca kale taasina u maan doona insha Allah mar baan falaqaynana qurux ku dhigle horta hore wuxuu ku soo galay ninka gabdhaha qaybta gabdhaha buu amaani jiray gabdha amaan wax maqli jireenna ma amaan gabdhuhu amaani jiray gabdhuhu way fiican yihiin gabdhaha la amaan
waa ninka kaliya oo iska dhigo shaarukhan shaarukhan timihi ma leeyahay ma laha wow oo tima la-aan muuqaalkii ma laha haye markaan rabo inaan shaarukhan iska dhigo markaa rabto shaarukhan iska dhigo waa inaad filmaan hindi badan soo fiirsatay way oo shaarukhan oo soo jilcibay way waa inaad jilciso tinta la dhacdaa maadaama aad afrikaan tahay hadalladii marka mar walba wuxuu leeyahay waxay idhahdeen turkey boy ay idhahdeen india boy ay idhahdeen cam boy ba idhahdeen fan waxa dhahay ku jiro fahant wuxuu jecel yahay faankaas iyo in la buunbuuniyo dadkii ka dab ordaan gabdhihii ka dab ordaan waxaas jecel ma laga dab ordaan marka social media dad badan gabdho badan ka dab ordaan khasabna noocaas way fahant إلا سومالنا هرام بكم ماذا إسفان إلا وفانية موجي عادي نن إسفان شيء ورئيس نكتي أي يرهذا ساسوا هذا مركل وحي يرهذين أفكاجا أما أنا كاجا ما هو الرئيس أو إن هذا اسمه مرمر ويبالسا أما بدي أضيع إلا واحد نقول واحد كغالب بركواي واسمي سندع ويا هاي شاروخ نيك كليو شاروخ نسكت دقيقة ninkaas waa afrikaanka waliba Soomaaliga TikTok buu nooga imaaday dhinaca TikTok buu naga soo galay faaninimada gabdhuhu difaacayo wixii buu ku soo galay waxa social media ugu badan daawadana waa dumar gabdhihi hadda difaacdin adeeg ku soo raacay oo sida laga rabay hadda ku qosli sida oo ka farxi sida hadallada dhaadeen ninka hadalladaas u dhahaya waa la soo raaca khas okay meeshaas aan uga bixinaa asxaabta qurux ku dhigle iyo saaxiibkeen meeshaas aan uga bixinaa teamkiisan wali ku jirnaa gudaha waxaan u tagaynaa Marish bal warkayga si Marish beauty waa horta waa gabadh aniga ugu qaali ah waa walaashay waa qof aad u wanaagsan u dabeecad wanaagsan bulshada soo dhaweysata isla soo jilay waa walaal ugu qaali ah family markii la yiraahdana waxaan maleynayaa ka guud baan wadaagnaa way Marish buu idib abshukri Marish wuxuu horta hore nambon wuxuu ku joogtaa quruxdeeda way quruxda ilaahay siiyay social media ku dhex joogtaa quruxda ilaahay siiyay way ku dhex joogtaa in quruxdaasna dad gabdho waxa jira qurux badan laakiin quruxdooda ma soo bandhigaan way intaan aan loo gudbin quruxda laftigeeda la isku haystaa nooca ay tahay qurux aniga ninkan gabadhna oo isku raacayna inay qurux badan tahay صح midna asaga oranaya waaw waa iga cajibis anna mid waxa leeyahay wax ku jiray iyo waxay ahayd qof bil aadan oo ilaahay abuuray bay ahayd quruxda horta adu sidoo taqaana quruxda joogi jamaalka ma aqaan baa qurux u taqaana way gudagal en quruxdeeday ku joogtaa quruxdeeday ku joogtaa waxay kale ku joogtaa waliba dhanka labiska hubqaadka labiska ayada ku soo baxaya ay taqaana qoftan wow labis in ku soo bixin maxaad social media TikTok waa aragtay TikTok markii ku jirto saas inta dharka xirato maanta saas inta yirista heesna way saaran xagee ma la hadlaa xagee saas leeyahay mafahant marada saa check siinaya maanta dhabarada la celcelin maanta dhan saa marada la celcelin saas ama sirku quruxda ka taag gabadha marka waa xaragadii gabadha marka music ba u saaran ma la hadlo hadii la hadlana hadal badan lagu ma hadlo haye af kala qaad yar oo qurxono intaas waa quruxdeedii haye bay bandhigaysaa iyo arka saan u eg markaas camal nimankii maxay subinayaan ka soo dabayaacayaan saasa loo soo dabayaacay numberkeeda raadiya gurmad badan ay yeelana numberkeeda raadiya war gabadha qurux badan ay warta yarta raadiya loo saaray in kasta hadda mid galmudug ay ku haysato quruxdii inanta dheer inanta dheer ku haysto inanta dheer ba ku haysato oo tiraada siyaasiyiinta oo dhan markaan u maan dadka kale waxay subiyaan faninimada iyo talentnimada way talentinimo horta talent ma laha way wax talentiyaba ma laha gabadha wax talent ma laha haye maxay leedahay talent soo talent ma laha kan wuxuu siiyay sidii lagu soo jiito dadka soo jiidashada buu ilaahay siiyay baa rabbi u geliyay dhinaca talentiga halkaas xagga loo geliyay xaragada ayada saan u naqaano riwaayado badan ma subiso waxay subisaa fadhiyaal waxay subisaa prank subisaa waa YouTube-ka waxaasay subisaa TikTok-na waa quruxdeeda bay soo bandhigtaa dad qaar waxaa arkaysa gabdhaha hadlaayo like huda camal oo kale gabdhaha noocaas fara badan yihiin way hadlaayaan daldalmaayo waa soo socotaa huda daldankaas la geli doonaa
daldalankaas hadalkaas ma laha waay laakiinse wuxuu ilaahay siiyey qofba ilaahay buu wax buu haybad gooni uu siiyey waa sax marka qoftaas leedahay laakiin talent waa zero haye socodka iyo markii waa socodka weli ma aan arkin waay weliba kaama soo harbixin anigu weliga ma soo harbin socod horta inantani aniga talent badan bay ila leedahay sax dhinacayga haye waxay leedahay xirfado badan bay leedahay waa qof wax baratay aqoon bay leedahay ha ilaa heer jaamacadeed bay gaartay marka iyadu gabadh aad u wanaagsan oo dabeecad wanaagsan dee quruxdeedana waa gooni u tahay dee waa hibo ilaahay bixiyo ayadana halkaas uga gudubtay haye adaa mid ku siinaya marka way abshuri waxaan u gudbaynaa dhanka nimanka way dhanka nimanka u soo socona mise gabadha weli gabdhahan ku jirnaa sug way gabdhaha mid baa jirtay Gabdhaha aad midaan aad ugu ciil qabtay midaan ku siinaa mid aan u cil qabo ma jirtay Eh. ma ana midda yeesa waxaan u tegaynaa Queen Hafsa Queen Hafsa ma waa taqaanaa ma aqaan Queen Hafsa ma taqaan ma aqaan Queen Hafsa weligay igama soo harbixin weliga ma ka soo bixin weligay igama soo harbixin social media ma ka daawatay social media aan ka daawadayna eh social media aan ka daawana waa ishaysadka falanqayn fiican kama lihin laakiin adiga igu dhaama la soo bilaabay halkii aad ku kala tagteen maba garanay sheekada ugu jeedin absaxaada anigu ugu soo gudiyay abshigu ugu dhaqaajin sababta ugu soo geldiye waxay tahay ma dhaqaajin karo qof aanan Queen Hafsa. dadkaan dhaqaajin karo waxa kamid ah waa Queen dadka- Hafsa horta mar baan isla shaqayn jirnay waliba muddo muddo aan isla shaqaynayna gabadha waa gabar firfircoon markii la dhaho hadalka social media waa dadka ugu hadalka yar hadalka markii la dhaho dhanna waa loo hadlaa dhanna waa hadalka uu yiri dhanka markii la ruwaayadaha jiliinkooda horta jiliinka ruwaayadaha way kusoo baxeen waa jilaa way jili kartaa ruwaayadaha si fiican u jishaa waay dad badan wixii loo dhiibo waa gudbinaysaa wixii loo dhigo way gudbinaysaa waay dhanka social media weliba tiktok horta ma arkin dadka talentiga la tiktok horta way yiri dad waxa kusoo dhigaan ruwaayada yar oo dadka qoosliyo waxyaalo yar fani yar fani waa dadka talentiga leh laakiin gabdhaha laakiin ma sii wadi karaan sababta aan ku arkay waxay tahay hay riwaayadii horta waa tii hal saac socota oo tii hal saxa socota riwaayad markii Soomaalida dhinaca Soomaalida la yiraahdo hal saac ilaa 30 daqiiqo bay socotaa riwaayadu laakiin markii aad tiraahid qofkan aad TikTok ka aragtid oo aad tiraahid kaalayo ila jil laba isku ma aadin karo waa dhinaca TikTok leeyda waa amuurta aan arkay weey qofkii dhamaa waa ka dhamaatay maxaa iraahdaa ku leeyahay aniga TikTok baa ahay asagii dhamaa waa TikTok waa inta kali waa labada xabo waaba labada xababa laba eray buu tuuraya nabaday isku halka uu qofka kale curyaha u yahay oo ku dardarayo marka barnaamijkii u dhiibtid ama marka mawduuca aad u dhiibtid ama marka sheekada u dhiibtid uu ku darsanayo ayuu kuma darsan karaa way soo waayahay dhinaca TikTok-ga dhinaca TikTok-ga dadka Soomaalideena ugu badan tahay waa heesaha ayaa la iska duba playback waayahay waa waxa yar oo anigu aan garan waayay ciyaartooda ciyaartooda anaga u fog waay playback gabadha say talent u lahayd bay waxay kusoo biirtay qola aamusan oo haysa kor looga saarayo oo shibshib leeyahay marka talentigaada waa dhuma infant meeshaas ku dhuma marka gabadha meeshaas ku dhuma talentiga jilaagnimadeedii soo xujidi jirta ruwaayadaha waa dad gabar waxaad wax jili kartay meel iska soo saar leh waay dad badan oo waxa jira maanta bari hore wax jili jireen oo maanta jiliinkooda dhumay waay infant hadda Hollywood ka soo qad Mareykanka filmaanta weyn nin atooro weyn oo filmaantu u jilaa kadib intuu filmaanta ka baxo hadduu galo muxuu ah kuwan yararka musalsalada yararka filmaanta Mareykanka hadduu galo waxa lagu leeyahay ninkii weynaa waxa ka dhumay wixii baa ka dhumeen oo xagu ku biya marka dad waxa jira marka talentigooda ayagoo le talentigooda oo dadka jecel yihiin oo shidan kadibna waxyaalo kale intay galaan yar oo TikTok waxan intay galaan talentigooda meesha ku dhuma marka meeshaas aan ugu gudbaynaa waxaan ku siinayaa gabar dhaaya Queen Mustalifa سوي ورقة مسوي ولي ما دعوت تي في ما كدعوت أبي أفكاره تلفورت والسلام الله أوكي سمية مقصينا سمية حدا دعوت سمية سمية رواسيد كله أنا قلت والله يقول دابايو دين على السوشيال ميديا وأنا كل حكي رير بدينا وانكا
oo ninkii dee duurka geela ku raacaya صح ariga la jira looda la jira ninkaasaan la mid ah sababtoo ah kuma mashquuli jirin اوكي مركا laakiin qofka dhifka aan arko bulshada inuu si uga dheerdheeraynayo ويلش ويلش إن الله هردا متقنا hurdaay waa saaxiibkay هردا إحنا قصي waayahay hurdaay horta waa nin dhalinyaro ah oo aad asna u calool xaaran weeye wuxuu ahaa youtuber wuxuu nagu soo galay riwaayad ama film lagu dhex dhigdhigayay wadada dhexdeeda oo tash gabadh loo saaray oo loo geliyey iyo asagoo suurkiisi xiran oo ku dhex niikinayo weliba hees u qaaday waa film oo wadada dhexdeeda ka dhex dhacay I don't know braking miyuu ahaa mase film buu ahaa buu nagu soo galay hurdaay ka bacdi wuxuu bilaabay waxaan brankinka ay yidhaahdaan ama ay yidhaahdaan kaga nixisada qofka laga nixinayo oo kale oo qofkii aan wax waraba isku hayn shaxa lagu siinayo dadku ay yaabayaan kaamirada qarsoon ka bacdi asagoo olyo lagu daadinayo buu soo galay hurdaaye dhanka talentiga waa nin talent leh waa nin wax gudbin kara wey qof wax gudbin kara waana youtuber weeye laakiin haatan dhinaca fashionka buu u beeray dhinacii talentigiisu ka gudbay waa ka gudbay dhinaca hadda wuxuu noqday xayeysiyaha dharka xayeysiyaha dharka xayeysiyaha haddaad suurad u baahan tahay hurdaaye laakiin shaati hurdaaye la kuma geli karaa umaleynaya ani waxaan jeclahay qofka markuu talent leeyahay talentigaas inuu meel ka gaaro oo ku wado meel inuu ka gaaro waxaa noo soo haray أم حساب talenti ilaahay waa siiyey waxay ka mid ahaan jirtay oo la saaxiib la ahayd saaxiib waxay la ahayd marish asma galaan bayzu waxaa la isku oran jiray tiim waayaabka bay kasoo dhexbaxda laamo badan bay ahaayeen afartaa gabdhood waxay ahaayeen 4 gabdhood oo walaalo ah oo saaxiibo ah oo nafta isku bedesha afartii gabdhood qayb way guursatay qayb way dhooftay oo wadanka sida Turkiga kale galaan baysu halka ka salaamay walaal ugu qaali ah oo ayada laftiga waa qof waxbarata aqoon leh ilaahay jaamacadeed way xamda waa ku timid xamda Abdurrahman oo la yiraahdo Mahzab wiilkeeda way Ahzab talent way leedahay laftigeedu waa kalkaaliso way caafimaad baratay kusoo shaqaysay weliba xirfadda kusoo shaqaysay haddana talent leh oo qof uur xaaran wanaagsan oo dad jecel oo dhalinyarada oo dhan jecel inay qof walbaba wajiga uu ku qaabilo ay kula timaado ama ula timaado jecel waa qof afgaaban aan hadal badnayn oo dadka shabta iska yaraan ahayn talenti way leedahay laakiin waa talentiga waxa weeye si u curyaanka ah talentiga laftigiisa qaybna curyaanta qaybna soo saartaa hor u socotaayo dib kastoo haysta jeexa laakiin waa dadka u nugulka ah oo haddii wax yar ay soo food saaraan waxay ahayeen oo dhan halkaa dhigayaan dibna uga laabanaysa meeshii wadadii ay haysay laakiin waa qof talenti leh qof halka ay dhigto hadaladay ku hadlayso ereygaad u dhibtid af Soomaali fasaxana taqaana ee luqada badanna ku hadasha sida marish oo kale way hadalkan ka dhamaanin hadalku una ka dhamaan way hadlay way daltalmay dhinaca labiska waa dadka yaqaana saa sheegtay dharka ku soo baxaya waa gabar dheer hadal waa dadka loogu talagalay aad isleedahay waa dadka qorniinka dhinaca qorniinka dadka quruxda leh oo soo jiidashada leh weeye waa dadka dabeecadda wanaagsan ilaahay moogtay dadka qaar waxa uu xusiyaa waxna ilaahay isuguma darayna isuguma daraayo waxaas u dhanta qaar dabeecad bay wataan qaarna waxay wataan joogi jamaalkii quruxda badnaa wataan dabeecad ma laha qaarna uu isku siiyay qaarba sibay u kala wataan aad iyo aad marka barnaamijkeena wali waa wadnaa waa gabagabadii nin shaqbaaba la dhahay au maani ma shaqbaaba baanu imaanay ninka talentigiisa dhumay
ninkaas iga shakee way sheekh baba waa soo galaynaa sheekh baba waxaan soo wada shaqeynay muddo aad u dheer baan soo wada shaqeynay waxaan ahayn saaxiibo ha sheekh baba waa nin talent leh said laakiin waa dadka duulduulow hadduu duulin darbiga qabso waa maqli jiray waa dadka aan halgeed Hal geed ku aan taagnaan ku taagnayn. karin waa dadka fudfudud Ah. weeye sheekh baba markii uu talent leeyahay oo ah dhinaca jilliinka dhinaca jilinka said waay talent waa leeyahay. marka hore jilliinka wuu dhigayaa halkeedii buu dhigayaa filmaan waaweyn oo hadda soo socda Uu galo. buu ku jiraayo sida ayaan loo kale buu ku jiraa oo qayb ka yahay laakiin mar waxay ka tusaysaa isagoo fanaan ah weliba fanaano iskuma jiraan kuwa raabarka oo timaha tidcada raabarka, alaabtaas- oo timaha dabta alaabtaas u gala alaabta raabka qaada Ah. beled beled buu iska dhigayaa ha wuu ka boodayaa jilliinkiiba haddana dhinac kale ka gelaya waa ka boodayaa maba ahanba kii waaba shiikhba tabliiq buu la socdaa marka waa qof fudud baba waa soo fadhiisanayaa anuu ree hebel baan ahay buu leeyahay sax weyna aqoone anigu hee reer hebel he la ismaba yaqaan is yaqaanaba. la isma yaqaani waxaan ahaa reerkii soo haysan jiray dunidaan oo dhan boqortooyadii waa aniga hadhowtii oo kale alaab yar baa la jilayaa aabbayaa ah tool buu la jilay tol buu la jilaa tool tol ninka dheera tool dheer buu la jilay Ah. aabbayaa ah aabba adigu soomaali baa tahay yes anu soomaali baa yes anu soomaali baa yes anu soomaali baa haddeeta maxaa ahayd waxay ahayd- boqortooyadii soo xukumi jirtay oo ree hebel dhanka kale la aada haddana waxaa la leeyahay yarta fiiri yarta fiiri Ah, sidaa wey saaxiibkeen waa la joogaa dhac ah, halkeer meelaa waxaa lagu jiraa kuwa tiktok leyd ah. garoob baan qabaa ii kaalmeeya garoob baan qabaa ii kaalmeeya garoob baan qabaa ii kaalme Say waxaa jira mid baa u imaanaya alaab ha saaxib waa ku siinaa lacag misaakaas isku celcelis wallahi waxaa iga soo gasha isku celcelis haddaan maalintii celceliyo waa tiktok shalay muxuu ahaa muxuu ahaa alaabtii raabar rabarkii maanta muxuu yahay waa tiktok shalay muxuu ku jiray film weyn oo halkee ka soo gelaya waa hollywoodkii hollywoodkii buu ku jiray maanta muxuu yahay tabliiq tabliiq assalaamayna nin guuxaya allaha mataqaanaa guuxay Ah. maya guuxay may waan u imaan doonaa ninkan wax badan waa soo socdaan qaybo badan weliba intaan si fiican usoo daawano Ah. yaan laakiin la xanaaqin haddaad xanaaqdinna isyara deji isiradaji waa kaftan waa la kaftamayaa qof walba wuxuu ku jooga youtube annaga xataa waa isfalanqeyn doona annaga laftigeena waa isfalanqeyn doonaa groupba maalin baan u tegaynaa naga dhammaan mayo waa dunida xataa weriyaasha laftigooda ayaan gelaynaa madaxweyneyaashaan gelaynaa kor bay u socon doontaa haddii rabbi raalli ka dhigo socodkaagaa la muujinaya waxa aad tahay baa lasoo bandhigaya sida dadku kuu yaqaan baa tahay laakiin sidaa isku taqaanid ma tihi marka wakaas barnaamijkeena intaas ku egyahay cabshugri waxaan idin leeyahay waa inoo toddobaadka dambe haddii rabbi raalli ka dhigo daawasho wanaagsan haddii aad rabtid in hebel lagu falanqeeyana hoos noogu soo qor waa socon doonaa marna dalka waa ka bixi doonaa marna dalka waa marna soo geli doonaa madaxweyaasha u geli doonaa haddii Insha rabbi Allah. raalli ka dhigo Salaam sidaas iyo alaikum. nabadgelyo